kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandor Media oo caalamka soo gudbiyay barnaamijyo xiiso leh warar iyo warbixino ta kalena waxaan maqlay Soomaalidu like kuma saarta ma garanaysaa fiidiyogan like saara waxaan rabaa inaad fiidiyogan like saartiin inay lacag lagama qaadaye like iska saar ha adaan kula hadlaya adiga dhibkay daawanaya inaan waalad muusa laakiin ma waali maanta barnaamijkan ku saabsan yahay arooska Khadra Saleem iyo Maslax Mideeyo oo noqday arooskii qarniga laguna hadlayay social media 24 saac ugu dambeysay wuxuuna noqday arooskii qarniga ee laga dab dhacay arooskan ayaa muddooyinka ugu dambeysay hadalhayntiisa ay socotay lagana qabanqaabinayay dadyo badan kasoo qayb galaan la filayay wuxuuna u dhacay arooska sidii loogu talagalay oo dadyo badan oo caan ah ayaa kasoo qayb galay waxaana lagu qabtay dalka Djibouti gaar ahaan magaalada Djibouti ee caasimadda dalkaas arooskan ayaa waxaa kasoo qayb galay fanaaniin badan oo caan ah oo Soomaalida dhexdooda magac ku leh sidoo kale dadyo kale oo caan ah oo YouTuber ah arooskan ayaana qabanqaabidiisa waxaa gacan weyn ka geystay fanaaniinta deegaanka ama fanaaniinta Djibouti Khadra Saleem iyo Maslax Mideeyo ayaa waxay dhigtay arooskii qarniga kaasoo dad badan ay ka xanaaqeen sida Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan arooska lamaanahan cusub waxaa soo dhaweeyay taageerayaasha Khadra Saleem oo aad u fara badan social media xoog ku leh soona dhaweeyay arooskan Khadra Saleem kuna farxay sidoo kale waxaa hambaliyo isla dhex mariyay saacadihii ugu dambeysay social media taageerayaasha Khadra Saleem oo aad u soo dhaweeyay arooskooda sidoo kale fanaanka Maslax Mideeyo waa fanaan da'yar oo sanadihii ugu dambeysay social media qabsaday aadna xiisiis u qarxeen dhowr milyan ay gaareen fanaankan ayaa soo shacbaxay sanadii 2019 wuxuuna kusoo shacbaxay xiisa badan uu qaaday fanaankan oo Djibouti ku nool ayaa wuxuu nolosha hadda la wadaagaya fanaanada caanka ahayd ee Khadra Saleem oo horay ilmo u soo dhashay ama maamo soo ahayd haddana bahda Fandor Media waxaan leenahay alfa mabruuk kun iyo kow jeer isku waara ubad qarqaban kala hela arooskan ayaana wuxuu noqday arooskii qarniga oo laga daba dhacay dadyo badan oo caan ahna aad u hadalhayeen social media 24 saac ee ugu dambeysay ama 48 saac ugu dambeysayba aad loo hadalay social media lana wareejinay hambaliyada lamaanahan cusub ee qarniga waxayna noqdeen lamaane isku soo baxa ama isku qalma sidoo kale waxaa hambali diray fanaanada Ubaad Ararsan oo ayadoo arooska qayb weyn ka geysatay qabanqaabinaysan ayadoo ku sugan Djibouti waxayna hambali iyo bogaadin u dirtay lamaanahan cusub ee nolosha ku aqal galay dhawaan sidoo kale waxay barta ku leedahay Facebook iyo Instagram-ka iyo Facebook soo dhigtay posti ay ugu hambaliyeenaysa lamaanahan cusub ee dhawaan nolosha ku aqal galay kuna bogaadisay arooska ay dhigteen kuna faraxsan tahay soona dhaweynayso gacan weyn ay ka geysatay arooskaasi sidoo kale waxaa u hambaliyeenay fanaanka caanka ah ee Cawaale Aadan ay saaxiibo dhow yihiin Khadra Saleem kuna hambaliyeenay arooskan ay dhigatay soona dhaweeyay arooskan asagoo xafladaas kala kiciyay kana hiisay arooskeeda halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandor Media oo caalamka soo gudbiyay barnaamijyo xiiso leh warar iyo warbixino qisooyin jecel wararkii ugu dambeeyay social media iyo fanaaniintaba fadlan walaal macaan markii ugu horreysay channelkeena soo booqato subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyada aan soo gelino mar kasta iyo maalin kasta una sii sheegay asxaabtaada haddaad nala joogto hore nala joogtana fadlan muuqaalkan like saar si uu gaaro asxaab badan oo aad ku mahadsantihiin daawashadeena iyo sida qiimaha badan ee aad nala socotay mar kasta waa bahda Fandor Media isku duuban oo idin leh kulanti wacan